بسم الله الرحمن الرحيم waxaan dadka dadweynaha nagala xiriiraya qadka Facebook ogeysiinayna inaan soo toos u soo tabin doono live oo jaaliyadaha gobolka Heesan magaalada Darmstadt shirweynihii ka qabsoomay oo dad fara badan ay ka soo qayb qaateen waxa kamid ah madaxda jaaliyadaha gobolka Heesan ee Soomaaliyeed guud ahaantood meeshaan ku dhan oo ka soo qayb qaatay waxaanan idin ballan qaadaynaa in aan live-kaas soo tabinayno ilaa iyo dhammaadka iyo bilow ilaa iyo dhammaad marka hore anagu aan xalino danta anaga naga dhaxayso noo gaarkaas marka hore aan xalino markaan xalino duulaan baanu geli karnaa waxbaan raadsan karnaa waana soo dhacsan karnaa waa la hubaa laakiin haddaynaan isku duubnayn oo ay shirkan maanta isugu nimida ay galab caawan u kala tegayo birinayna walba halkiisa u tegayo waxaan faa'iidayna male dadka loo yeerina waa la soo lugooyey ma fiicna yaynaan dhegin dadkaan u yeernay dada soo lugooya wax loo qabanyaa laga dhigin intana sugayso oon ka soo tagnay iyo inta halkan joogtaba aan wax isu wada qabanno aanu mid noqonno aan isu hiilinno ka tiran ka dhibaataysan ka la celinayo ka wax walba u baahan ka dhibaatadu haysan ka afka u baahan ka taageerada u baahan mid walba oo Soomaaliyeed dhibka haysan aan iska caawinno aan isu hiilinno habeenkii aan isu hiilinno maalintii aan isu hiilinno galabtii aan isu saacad walba aan isu hiilinno waan helaynaa laakiin haddaan galabtii fadhiyo halkaasa tagay oo faraxna gaadada halkaa duulayna halkaa gaada waxnu hagaagayaba meelkaan u fadhiyo dirina haddaad tagto waad yaabaysaa waxa ka yeelaya ururaha ka jira ilaa 3-4 urur baan malaynayaa u malaynahayo 4 urur waan maqlaysaan baan malaynaya inay wada joogaan u malaynahayo qaar maqan yihiin marka hadduu ururadii heesan qaar maqan yahay weli waxay naga maqan ximin weyn baa naga maqan 2 xibnood baa naga maqan ka badan baa naga maqan xibnaha naga maqan ha loo yeero hala keeno fadhiga hala keeno goobta hala keeno si gooniya loo wada hadlo bukaanka dhexdeeda ku jira hala saaro aan caafimaad anagoo qabna aan wax raadsan waynu helinaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وهجاج آد ayuu u mahadsan yahay oda ciisa marna waa saaxiibkayga marna waa adeerkayga markale sacalka ayaan jeclaanahay inaad sii siisaan wahagaag waxaynu ku guda jirnaa waxaan haatan soo dhaweynaynaa cabdiqaalib oo markaasi halkaan isagana soo istaagi doona sacabkii soo dhaweynta waxaan jeclahay waa wariye Majaay oo isagoo daadahaynaya shirkan tooska aad u daawanaysaan waxa kaloo ka qayb qaatay shirkan dadyo aad fara badan oo gobolada dalka Jarmalka gaar ahaan Heesan isugu yimiday waxaan jecelnahay inaan toos idin la socodsiino inta oo muddada uu dhamaanayo shirkan oo kulli saac ama 2 saac 3 saac socon doona waxa kaloo jooga gudoomiye ayaa isaguna jooga gudoomiye aadan oo isaguna kamid ah gudoomiyaasha ururada Heesan oo si weyn uga qayb qaadanaya gobolka waxa kaloo la socda Germany ayaa isaguna jooga Abdishkur Germany waxa kaloo jooga dadyo fara badan oo Soomaaliyeed oo iyaguna ka qayb qaadanaya shirkan xalka loogu raadinayo bal sida loogu hortagi lahaa dhibaatooyinka Soomaalida Heesan dhinaca sharciyada ka haysta waxa kaloo joogta iyaguna jooga guddigii masaajidka magaalada Darmstadt oo iyaguna fadhiya Für die 22 Jahre hier und schmeckt langsam, der Raum wird immer stickiger, die Luft wird immer dünner und die Leute werden immer lauter. Das ist der beste Zeitpunkt, sich hinzusetzen, über Lesungen nachzudenken und vor allem
zukünftigen Schritte zu planen. waxaa hadda qaar ka mida guddiyada loogu talagalay inay shirkan ka qayb qaataan. Veränderung antreiben, diejenigen, die am tatkräftigsten sind. Die Situation, die wir haben, ist abzubilden. Deswegen für dich, mein geehrter Bruder, meine geehrte Schwester, warum ist es so wichtig, dass du aufstehst? Die langsam Gedanken machst darüber. Weil jeder von uns davon betroffen ist. Entweder die eigene Mutter ist davon betroffen, dass sie die deutsche Staatsbürgerschaft nicht bekommt. Oder man ist selbst davon betroffen, weil man selbst die Staatsbürgerschaft nicht mehr bekommt, die Geburtsurkunde nicht mehr reicht. Was willst du machen, meine geehrte Schwester, wenn du ein Kind bekommst? Du möchtest doch dein Kind anmelden, dass es eine Geburtsurkunde bekommt. Wenn du jemand bist, der nicht anerkannt ist, dann ist dein Kind auch nicht anerkannt. Dieses Werdegang für dein Kind, ein Anführungszeichen Staatenloser zu sein, der keinerlei Rechte hat. Wir sehen jetzt nur das Ergebnis von 22 Jahren langem Schweigen. Ich möchte nicht die Zukunft sehen, was passiert, wenn wir weiter nicht machen. Wir brauchen natürlich viele Punkte. Wir brauchen natürlich einer der ersten Schritte, die wir gemacht haben, ist der beste Schritt. Wir sind zusammengekommen. Wir lassen unseren Frust ab. Aber lass uns nicht zu denjenigen gehören, die, wenn sie diese Tür verlassen haben, den Frust hier gelassen haben, aber keine Veränderung mitgenommen haben. Für dich und für mich heißt es, dass wir uns öfters treffen. Ka codsanaynaa Soomaalida daawanaysa iyaguna inay sii sheergareeyaan maadaama ay toos ugu jiraan xafladda ka dhacaysa magaalada Heesanon iyaguna Wir haben hier Gäste zu Besuch von der Linken. Ich bedanke mich ganz herzlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass man eine Minderheit zuhört und die Minderheit diejenige ist, die nicht zu entscheiden hat. Aus diesem Grund vielen Dank und ich hoffe, dass unsere Anliegen weitergetragen werden. Es betrifft nicht nur eine Generation, sondern mindestens 3 bis 4. Und es betrifft nicht nur eine Person, sondern eine ganze Community. Und es betrifft nicht nur Darmstadt, sondern auch in anderen Bereichen wie Marburg, Wiesbaden, Kassel, Fulda. Und für uns, diejenigen, die hier aufgewachsen sind und diejenigen, die auch groß geworden sind hier und diejenigen, die neu dazugekommen sind, sage ich nur eine Sache. Wir haben einen Schritt gemacht, einen Schritt gewagt, den wir vorher noch nie hatten. Ich lebe hier seit 22 Jahren. Noch nie haben die Somalis zusammengesetzt, dass sie da die Problematik besprechen. Unabhängig von irgendeiner Zugehörigkeit von irgendeiner Stadt, haben wir noch nie gehabt. Das ist der erste Schritt. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich, dass ihr hierher gefunden habt, von den verschiedenen Städten. Wir lassen eine der Sachen, die ich mich sehr stark, wenn ich das ein bisschen zurückschaue, unsere Situation ist nicht dementsprechend, aber in der Vergangenheit ein bisschen rumwühle, gab es in Südafrika sehr viele große Probleme. Diejenigen, die dort lebten, sie wurden unterdrückt, man hat ihnen alle Rechte weggenommen. Obwohl sie die Mehrheit waren, wurden sie als Minderheit angesehen und man hat ihnen sehr viele Rechte genommen. Das, was gesorgt hat, dass die Situation geändert wird, war gewesen, dass sie aufgestanden sind für ihre Rechte und sich verletzt haben. Und vor allem den Preis, den man auf diesem Weg mit sich nehmen muss, dass man auch manchmal Rückschläge hat, eingesteckt haben. Letztendlich 1989 haben sie die Unabhängigkeit zurückbekommen. Was ist mit uns? Wir müssen wissen, unser Weg bedeutet Mühseligkeit, bedeutet Strapazen und vor allem bedeutet, dass man auch Geduld hat gegenüber anderen Leuten, auch andere Denkensweisen. Und vor allem, dass man ein gemeinsames Ziel hat. Und ich wünsche mir von euch allen, dass wir ein gemeinsames Ziel definieren und gemeinsam den Weg gehen. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich. waxaa hadda hadalka qaadanaya guddiyadii isxigxigay waxaana inoo daadanaynaya wariyaha weyn ee Majaay. waxaynu ku guda jirnaa xafladda markaasi ee Soomaalida xidhiidhsan markaasi kaga aragaysanayaan dhibaatooyinka Soomaalida ku haysta gobolka xidhiidhsan. haatan waxaan u yeerayaa Cabdiqaadir Sacad Isu Dhaweyd.
gudoomiye Kamaal ayaa isaguna fadhiya oo ah qabanqaabiyaasha sida weyn ugu soo dadaalay in shirkan uu inoo qabsoomo maanta tan oo dad tiro badan ay isugu yimaadaan magaalada Darmstadt si ay uga qayb qaataan xawlihulidda dhibaatooyinka Soomaalida Hessen haysta ee muddooyinkan uu ka mid yahay sharciyada xaniban qofka baasaboorka Jarmalka uusan dooran karin ama waxyaabaha loo yaqaan Andres Angaba. maanta waxaan farxad noo ah inaan nala soo qaybgashay kulankan oo mataqaanaa aan haddaan nahay reer Darmstadt aan ku martigelinay Soomaalida Hessen iyo nawaaxida iyo mustaqbalka kale annagoo uga hadlayna dhibaatada haysata Soomaalida mataqaanaa hadday ahaan aan soo koobi karin laakiin aan jeclahay qaybo ka mid inaan ka sheego dhibaatadaasna waxaan jeclahay maanta inaan waqti qaadano oo mataqaanaa aan ka fakarno xalkeeda dhibaatooyinka waxaa ka mid ah in qofka Soomaaliga uusan aan loo diiwaangelin gawaarida qofkii wuxuu sameynaya marka hore laysanka waad garanaysaa qofku markuu teorigiisa iyo hawshiisa gelayo waqtina waa u dhumayaa lacagna wuu ku bixinayaa dadaal badan intuu sameeyo qofkii oo badan waqtina ku lumiyo ayaa markii uu ku guulaysto inuu helo laysankii ama fuuqashirkii in gaari uu soo gato gaarigaas kadibna uu la tago meesha waxaa la sulaas mushteelaha ama qolada diiwaangelis gawaarida nasiib darrana waxaa lagu dhahaa ku diiwaangelinayna gaariga sababtuna waxay tahay baahida waa garanaysaa loo qabo maanta gaari sanda qofka mataqaanaa familiga oo ciyaalka leh ilmihiisu ku qaadanaya ugu soo adeeganaya nolosha asaasiga ayay ka mid tahay sidaa aawadeed gaari la-aan lama joogo qofkii marka la yidhi maba yeelin gaari ma diiwaangashan karin dhibaatadeeda waa garanaysaa qodobka labaad ee Soomaalida haysata waxa weeye aqoonsi la-aanta ilmaha dhasha ama gursiga kunda family baa leeyahay asagaysan walaalayaal family baa leeyahay caruur baa la haystaa ilmihii markii uu dhasho oo loo geeyo mataqaanaa shtaat amtiga wuxuu in la diiwaan geliyo ilmihii lama aqoonsanayo ilmihii lama aqoonsanayo oo waalidkii waxaa leeyahay Soomaalinimada la yaqaan ilmihii wuxuu ku joogayaa sharci la-aan dadkii kale ee nala midka ah hadday yihiin waddanka kuwa iska dhiibay ee qaxootiga ee Afghanistaanka ama wadamada kale Siiriyaanka waxaa dhacda ilmuhu hadduu dhasho automatically in la siiyo waayo safaaradooda la aqoonsanaya innaga safaaraddeena lama aqoonsana taas marka waxay ku keenaysaa ilmihii ilaa 18 ku gaaro inaa sharciga ama warqad yar la siiyo oo maaragtay oo qafantaasiya laakiin dhalasho uusan xaq u yeelin isagoo iskoolkii iyo hospitalkii wax kasta maaragta sameeya dhibaatada saddexaad ee Soomaalida haysata waxa weeye hay'adda guuda ama warqadda meherka warqaddaas qofku Soomaalida markii leesmeersado gabadha iyo wiilkiisa meersaan ee family xalaala samaystaan waxay u baahan yihiin aqoonsi dowladda Jarmalka inay haysato warqadahooda iyo mataqaanaa iyo guurkooda taas waxay u fududaynaysaa labada qof markay isguursadaan ee loo degaan in loo aqoonsado ishtooyada xitaa laga bedelo ishtooyada waxaa looga bedelayaa masalan ninkii xaaskiisa isagaa biilanaya lacala haddii ilma yimaadaan biilkaas waxaa laga jarayaa isaga cashuurtii waxay biil maaragta uu bixin isagaa loo dhigay familigiisa taas normaal ahaan ilmaha familiga waxaa loo aqoonsanaya ishtooya daraay ama class daraay ama lamarkeeda laakiin waa laga tegay halkan waxaa leeyahay lambarwan baa lagu cashuuraya reerkaagana waxa weeye waa in aad ugu mataqaanaa biilada
qofkii waxay gelinaysaa kharash iyo wajibaad mabel marka taas waxay ku tahay soomaalida culeys oo way ku soo rotay arrintan ayga waxaa hadda hadalka haystaa waa cabdulqaadir sabti oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanka ee degan magaalada Darmstadt oo si weyn u sharaxaya bal waxyaabaha xayiraadaha ay saaran dadka Soomaaliyeed waxaan ku codsanaynaa Soomaalida nagala socota barta Facebook-ga ee aan toos u tabinayno inay iyaguna sii faafiyaan oo ay sii gudbiyaan walaalahooda baahi badan baa jirta oo fiiska loo baahan ama mastarka taas wax badan bay qofku wax badan ayay u fududaynaysaa qofkii in uu wax badan noloshiisa ay fududaato qofku haddii aygan aan gaalo hadda ay kaga qoran tahay oo ay kaga taala baasiboorkiisa fiisarkaa ma helayo waxa la yidhaahdo iyadana waxay jirtaa riboortka oo qofkii in sutaraankiisa كوتا يسوي الأوتوماتيك للعقل عقبات بدل بس عقبات الصدحات أفراد مش يقول بينهم عملية دراسة الجبر يلا الوقت أقوى وهنا الصومالي مع اللي حاسوها عن في برسنت صومالي الفيلم يضرب كسمة كلمات بالنسبة لي وقت عقد الشرع هل قفوا صومالي في مجري ضد كلمة يوم الناي وضمنا كلمة الناي وحكي لي في يوم عملية أيضا عن جامعة وهي سفارة دولة lama aqoonsana aqoonsi la'aantaas warqadaheeda lama aqbalayo marka arrimahaas oo badan oo jira waxaa laga yaabaa shalay waxay ahayd wax yar bay ahayd mayna dareemayn markaan halkan joogna waxay ku ekaa keliya ayaga aangaa wuxuu ku ekaa wax yar oo kooban laakiin hadda waxay usoo socotaa gawaaridii in layska joojiyo aan lagu jawaabgelin waxaa imanaysa هذا كليه كله ويسوس عطا ولا بحسن إن قف كأي عن كذا قرنت اللي يقول لك كذا هذا نوعي كذا مركب بيوم كذا بيسوس عطا على الإسلام وصار وحاول بعرفنا هاي ما أنت إن مثلا عمل لرسل قانون واحد تيجي إن المعنى تقول الشر saad arkaysaan waa dadka toos aan ugu soo gudbinayno dadyo aad u fara badan ayaa maanta ka soo qayb qaatay oo mas'uuliyiin iyo dhalinyaro iyo odayaa iyo mas'uuliyiin badan oo maanta fadhida waan rabo kulley inaan idinla wadaago markoo baraha bulshada waxaan naga socodsanay inaad si toosa usii gudbisaan markaad na fiirsanaysaan أصحابك الوقت السينية الوقت مع البلد عشان كانوا مش شيء أصحابك أي بين discussion بعد المجتمع لكن دور hoolka lagu qabanayo maanta hool weyn waa magaalada Darmstadt waxaana looga hadlayaa dhibaatooyinka dadka heesanka haysta dhinaca sharciga waxaa isugu yimid haween dumar rag intaba oo ka tirsan magaalada Darmstadt oo raba inay iyaguna ra'yigooda ka dhiibtaan barnaamijka waxaa daadahaynaya Majai Live oo isaguna toos u tabinaya oo mid ka mid ah xisbiga Links Partei baa yimid Ja, hallo liebe Freundinnen und Freunde, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier sprechen darf. Ich bin etwas überrascht, das wurde mir vorhin gesagt, aber umso schöner ist es, dass ich persönlich für die Einladung... dumar rag iyo carruur saad fiirsanaysaan live baad u fiirsanaysaan Mir war vorher, sage ich mal bewusst, was intiina baraha Facebook ku jirta waxaan jeclahay inaad si toos usii tabisaan maadaama aad toos u daawanaysaan barnaamijkan waa barnaamij runtii muhiim u ah dadka Soomaaliyeed guud ahaanta waxaa kaloo jira madax fara badan oo iyaguna fadhiya oo inoo yimid maanta nagala qayb qaadanaya ragga ugu waaweyn magaalada ee sida weyn looga yaqaan
waxaa ka mid ah oday ciise oo isaguna si weyn runtii uga qayb qaata oo wax walba oo magaaladana runtii odayda ay ku dhisan tahay ka mid zusammenbringen, die sich für diese Problematik einsetzen und die weitertragen. Wir als die Linke sind die Partei, die sich versteht, dass sie für die Menschen da ist, für die Menschen auch auf die Straße geht und auch die Menschen unterstützt, die sonst keine Stimme haben. Mein Verständnis ist, dass alle, ich rede jetzt für Darmstadt, ich komme hier von der Linken in Darmstadt, ich bin auch im Land so ein bisschen aktiv, aber mein Verständnis ist, dass jeder hier leben, der hier leben möchte und der hier vielleicht auch leben muss, die gleichen Chancen hat, egal wo er herkommt, egal was sein Hintergrund ist, egal mid ka mid ah xisbiyada u ololeeya dadka qaxootiga iyo suuqrootiga ayaa hadda hadlaya waa xisbiga Links Parteiga. Und dafür setzen wir uns als die Linke ein. Wie wir sowas tun, ist, auch wir sind sozusagen die Kleinen im Parlament. Wir sind immer die Kleinen, die für die Probleme einstehen müssen, die eben sonst keiner hört. Royonga ayaa iyadana fadhida oo ka mid ah dadka sida weyn uga ololeynayay oo hadda maanta qabaqaabada si weyn uga qayb qaadatay dadka waxaan jecelnahay inaad iyaguna nala wadaagtaan hadba waxa soo kordha iyo dadka hadlaya. Aber auch wir müssen natürlich unsere Kämpfe immer gemeinsam austragen. Und deswegen fordere ich nochmal auf. Bleibt zusammen, tut euch zusammen. Je größer eure Gruppe ist, desto lauter wird auch eure Stimme sein. Und wir stehen gerne an eurer Seite, wir unterstützen euch dabei und ich hoffe, dass wir dabei alle das erreichen, was wir gerne erreichen wollen. Deswegen, ich wünsche euch eine erfolgreiche und schöne Zeit heute und wie gesagt, wir stehen an eurer Seite, wir sind gerne für euch da. Vielen Dank für die Einladung. shacabka aad maqashaan maanta waxay u muuqataa in magaalada Darmstadt aan loo kala harin oo inta badan dadkii waxgalka ahaa ama waxgaradka Soomaalida ay u dhantahay ayaadii sidii hal loo gaari lahaa iyada Soomaalida ay ku haysato waayagu waxay ku jirnaa xafladda markaasi saameeyay ku sheegay haatana marka la shacabka ay ka codsanayaan inay ku soo dhaweeyaan wakiil ka socda gudoomiyaha Darmstadt ama master heer waxaan jeclaan lahaa inaad shacabkiisa weydiisaan magaalada ay uga soo dhaweysaan. wakiil ka mid ah gudoomiyaha magaalada Darmstadt heer Ozil oo qaabilsan dhinaca arrimaha sooshiyaalka oo uu soo darsaday gudoomiyaha magaalada Darmstadt ayaa hadda hadalka qaadanaya isagu. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Glenn Hesser von der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Ich wusste jetzt gar nicht, dass ich nach vorne gerufen werde. Ich möchte mich auch bei Herrn Minister noch bedanken für die Einladung. Herr Schmann, der Einladung nicht folgen. Ja, Ihnen allen wünsche ich für diese Veranstaltung, auch für Ihre Arbeit in der Zukunft nochmal alles Gute und vielen Dank nochmal für die Arbeit. Dankeschön. Vielen Dank alle kuma sitay waana gaaqaatana waxa uu yeeray Ibrahim Xaaji waxaan jeclaan saxabka iyo soo dhaweynta inaad ugu soo dhaweysaan Abdikariim Xuseen Guuleed Majaay waxa uu hadda u yeeray mudane Ibrahim Xaaji oo kamid ah ururada ugu waaweyn magaalada Darmstadt kamid ahaa qabanqaabiyeyaasha soo qabanqaabiyay shirweynaha la isugu yimid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مكسرة على كسب حمدان أويكا ولياشا نليارا ورنا هيسن كيجر يورا دامشتار أمشوا وتقبل وتنسنال أسوي وأكن كنوا كدامشتار دليل بقاي Amanti waxaan ku soo dhaweynayaa in ku saabay islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
waxaa daadahaynaya dhinaca teknikada farsamayaqaan weyn oo ka mid ah isaguna oo runtii si weyn dadka Soomaaliyeed ay ugu dadaalaan ka mid ah aqoonyahanada magaalada Darmstadt ama la kulmo yani siyaasiyiinta dowladda in cod ay ku gaarsiiyaan isku dayda runtii dhibkaana haysto annaga laftanada sababa annaga Soomaali ahaan ayaa sababa maalin dhexdaasa waxaan la hadlo hadda waqti laga joogo safaaradda Soomaaliya waxay ii sheegeen in dhibkaan dowladda Jarmalka aysan anfaac aygan angaaba isaga samaynin laakiin dadka Soomaaliya laftooda ay sababta u yihiin ay tahay in warqadaha annaga ay haystaan Ghanese dad Nigeriana dad Tanzaniana safaaradda lala xiriiray ilaa iyo hadda ka hor waqti hore ilaa intaasna dowlad Soomaaliya ama safaaradda Soomaaliyeed oo war sax ah u sheegto aan yahay hadda waxay sheegeen inay si fiican ay wada shaqayn u leeyihiin ilaa iyo hadda waxay ii sheegeen 15 qof oo u dhashay wadamadaas waxaa soo ku jiray wax wadammadooda loo celiyay inay noqdeen marka ay interview intay la yeesheen ay ogaadeen inaysan dadka dad Soomaaliyeed ahayn qof kasta oo Soomaali asagaa laga rabaa inuu u noqdo safiir wadankiisa lama baahna warqadaha annaga inaan siino dad kale oo ajaanib haddii aan siino oo taas annaga taageero annaga laftanada ayaa yani sii dhibaateynaya midda kale waxaan rabaa dhammaan dadka naga Soomaaliyeed inaan gacmaha isqabsado inaan ismidowno inaan u diyaar garowno inaan dad isku mid ah oo isku dan ah aanan marka aan taas helno yani oo aan dowladda iyo nidaamka jirana aan taageero oo aan ka hor imaanin oo aan mar walba annaga aan isdhibaataynin waxaa suurtagal ah inaan bulsho kasta iyo meel kastoo aan joogno sidii hore looga tixgelin jiray looga tixgelin waxaan dhammaan idinku waaninayaa qof kasta inuu wadankiisa daacad u ahaado uu dadkiisa daacad u ahaado waxa uu qaban karna uu qabto asigoo matalaya dadkiisa hadda waxaan kaloo halkaan yani maanta nala joogo mas-uul ka tirsan gobolka Banaadir Maryam Macaan inaad garanaysaa dadka hore ay yaqaano oo ka socota gobolka Banaadir waxaan jeclahay in ayada lafteeda mikrofoonka ku soo dhaweeyo si ay warbixin nooga siiso xaaladda waddanka ka jirto iyo gobolka iyo waddanka sidoo uu yahay marka dhammaantana waxaan idin leeyahay aan gacmaha isqabsanno aan midowno aan tafraaqo iska dayno haddii intaas aan annaga wada qabsanno yani waxaa suurtagal inaan wax badan ay weeri karaan midda kale oo aan ugu dhiirigelinayo waxaa ka mid ah dad badan oo annaga naga mid ah waxay haystaan sharciyada oo baasaboorka Jarmalka haysto qofkii isagoo baasaboorka Jarmalka haysto xaq wuxuu u leeyahay inuu codeeyo asagana loo codeeyo bal haddii adiga warqadda aad iska haysato oo aadan codeynin oo aad guriga iska dhigto dadka xisbiyada waddankan ku jiro seed wax ugu sheegi kartaa seed u dhihi kartaa annaga dadkaasaan nahay waxaan loo qabto waxaan idinkula talinayaa dhalinyarada sharciyada haysato qofka Soomaaliya oo sharci haysto igaar xisbigu waa doona ha ahaado waa inay doorashooyinka aadaan waa inay cod dheerna ugu sheegaan xisbiyada siyaasadda ee waddanka annaga dadkaasaan nahay waxaasaan ka tabanayna annagoo wabilaysan waxaasada wax laga qabataan qarnaa haddii aanan taasiin haddii aanan codaynin haddii aanan muuqanin haddii aanan wada jirin waxaad ogaataa in dhibku uu nagu sii badanayo ilaa ay imaato xataa kuwa hadda baasaboorada haysto in hadda ayga si gaabaa laftooda ay ku soo baxay sababtoo annaga ayaa isdhibaataynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wanaagsan kaasi wuxuu ahaa Ibraahim Xaaji oo isagu la hadlayay dadka Soomaaliyeed aad ayuu u mahadsan yahay aadan Ibraahim Xaaji
استاذ أمام مكتب دماء فرح بغل قررت تدقلي بعض صحافته ولمدى ما هويك أمام أدى إلى سلامته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa kale oo isaguna nala jooga maanta oo soo booqday nin si weyn aad u taqaanaa waa Shiina Culay oo activist weyn dhinaca Facebook oo si weyn loo yaqaan oo isaguna maanta goob jooga ka هذا إيه وظيفة قناة لكن هذه الإيران سيدي جرمي سومالي لو موين سيدي أفريقيا ومالو لو قبطي أمير سلو قبطي الإيران نروح تينو سكين معلا على حصل سيكا لتنو كاسيو يمو بضا مسيحة سيدي يوم على سيفر وقت يمو سيدي مركب مسكين معلو أنا لا يبدو أن أعطو أين كذا بيانو يكسي مركب محلها يجي إلا لكن جالسينو دولة الصومالية دولة المسلسل مركز أيام خلاي أنا فرق بينهم ما أعرف شيء سيء خلاي دور ما في سفارة الصومالية خلاي يخطط لكم دور ما نشوف تحيا بس بيديني ويكمل يتاي سيد وحوق كديوتوي كأنا نحس الصومالية مركب ودو يرني ما يهو متى إنك تيجي كوميونتي الصومالية ذاتك مثلي وحلو بهاي مرة بمحلي إن ذاتك إنه قادت استحرن أيك الإعلام ومدس لا أفهم marka tii xagga wanaag loo isticmaalo community-da oo qaban kariya hadii xumaan loo isticmaalo aniga as qabsano yiraahdo groupkan xilli hebel la sameeyay ama aniga dhaxdeena iyo buuqi ama community-da oo xalay uu giga ku noqdo oo macnaheedu ma sameeyo muhiimadda waxay tahay aan isku imaano inuu ka raacno xalay ahmiyadda dhibaatooyinka haysto aan u daneyno wadkeena dhashay iyo kuwa dhalan doona intaba aan u sameeyno xalay waxyaabo ay biritoole ahaan ama ilaa ragii waaga gudoomiyayaasha meesha ama madaxdii ama martiyaasha ama aqaashi meesha joogtay waxa sabab tahay wax aan ay naga dhaxlaabo inaan sameeyo inaan isku imaana aynu ka talina aayaha ummadeena iyo dhammaan Allah iyo carruurteena rabbiga wasalaam alaykum asba ma sabta مسؤول سريع يا سجنا ما أنت نوجي ميدا مجال كاسل كان ميدا جاني دا مجال كاسل وهاي قرب واحد نص صارت رواية وحنفرق هذا الدنيا ويجي كده إن مجال الجامعة اسمه رواية فضلا رواية تفسير كم ناتا أيه أيوة مسك بالدروبي ولو واحد ممكن يجرنا هذا أيه ممكن يجرنا وأهم شيء مسؤول سيدي ما كسوة هو سومالي كده يونيفرسال وهم كده سيدي كده أو كاسبنا شغلة تقارن هذا هو مسؤول هي مدربية أبي هاي محمد موسى محمد حبنا وهكذا بسم الله الرحمن الرحيم مدرسة أهلية طن سلام ليان الميرادة ويلها وضياشة iyo bahda saxaafada ay halkan isugu yimid waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan malaynayaa hadal badan baa madasha laga yidhi intii odayaashu yidhaahdeen in ka badan u malayn maayo inaan odhan karo
anigu sidaa magacaygu idiin sheegay maxamed muuse maxamed baa la yidhaahdaa waxaan ka mid ahay ururkan dabadiina ka muuqda ee habinham ka dhisan runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ma odhan karo waa nasiib wanaag mana odhan karo waa nasiib daro inay horteeda soo fadhiyaan intaasoo feerayna oo ay Soomaali leedahay oo mid kastaba laga yaabo inuu matalo waxaan ka badnayn dad 20 qof ama 30 qof gaadhaya halkii ay noqon lahayd caqliga caadiga yaraa musa caqliga caadiga halkay noqon lahayd in magaalo kasta intay soo tagto awoodeeda ay urur kaliya ku midayso inay halkaas ku soo fadhiisana haysan ay loognahay tirada aynu kaga noolahay intaasoo urur runtii nasiib daro aad iyo aad weyn waxaan kula talin lahaa intii aynu iskuruursan karnay urur kaliya noqon karno aynu noqono intaynu noqon lahay boqolaal urur kala duwan Soomaalidu inta badan way hadashaa hadalkaana waxba kama soo intaasu ku eegaadaa marka madasheena maanta intaynu hadalno yaan hadal lagaga tegin wax qabad lagaga tago aad ugu mahad celinaya dhalinyarta shirkan soo abaabushay ee sukaan keentay laakiin waxaa la yaabaa chance aad u wanaagsan yeynaan iska dhawaynina aynu ka tashano wixii Soomaalida haysan dano wixii hooyada iyo cubadka iyo dhalinyarta dano wixii ummadda Soomaaliyeed dano aad iyo aad loo wanaagsan mahad celinaya sayidkiisa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وأنا مركلة رواية الجردو أنا كأي صوص ولا واحد جالها رواية الجردو يا قوم بنتان وهذا جالها رواية عن الموجود فصلنا بسكتي ما دام أيتاي تكلم أيتاي ما دام ما نتمورس رواية اللي ستتعاونون نصيب يوميشن ولا حاجة كاتن وحقيقية عمر صالح في زبادة وحاجة جلالها بدوبيا في زبادة إلى ساعة في سودوليتا أيوة سودوليتا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله aad baan idin salaamaya soo qaybgalayaasha iyo dadkiina baaburay barnaamijkan maasha allah maanta isugu yimid magacaygu waa cumar faarax kana socdo jaaliyadda Peaceman Minds jaaliyadda Peaceman waa jaaliyad aad runtii u ballaaran hal jaaliyad baan idin jirtaa jaaliyadda Peaceman iyo Minds jaaliyado badan ma leh waxta faraar badan xaqiiqdeena ma leh وافيك جالية مقالة فيسباتن وصلنا هذا القطاع waxaan ka codsanaynaa intiina ku jirta inaad sii sheergalaysaan oo qololka waaweyn sidii loo sheegay raggii iga horreeyey ay sheegeen waana wax jira annagu maalin kastana arrimahaas iyo arrimo maxaan ku idhahdaa la mida baanu la tacaalaynaa la daala dhacayna haddaan nahay reer Peaceman waxaan kaloo oranayaa annagu waxaanu diyaar u nahay haddaan nahay jaaliyadda Peaceman inaanu arrintan ka qayb qaadano oo weliba aanu maxaan ku idhahdaa aan gacan ka geysano oo sida walaalahii ay sheegeen inaanu midnimada aan kor u qaadno oo maxaan ku idhahdaa wixii dhinacayaga lagaga soo aada ka jaaliyad ahaan muruq iyo maal intaba diyaar baanu u nahay waxaanuna caddaynaynaa arrintaas inaanu jaaliyadda ku taageerayno maanta maxaan ku idhahdaa xiniyaha yeelatay maxaan ku idhahdaa inoo soo bandhigta oo tir war meesha aynu ka kacno waanu ku taageeraynaa waxaa kale oo jirta haddaanu nahay anagu reer Peaceman runtii laba masaajid oo waaweyn baanu mas-uul ka nahay Minds iyo Peaceman dadkaa waxaanu idinka sidnaa salaan iyo bogaadin waxaanu u geyn doonaa insha allah kadib wixii aanu halkaan kala tagno oo aanu ku aragnay madashan quruxda badan oo walaalaha ay isugu yimaadeen baanuna magaranaysaa ay halkaas ka turjumaynaa insha allah kadib waad mahadsantihiin diyaar baanu nahay wixii ka soo baxa maanta halkaas baanu maxaan ku idhahdaa anagu ku goonaa
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهاجا ولي وحي ودحبتين kaga jirnaa xafladda markaasi xalweynida Soomaalida dhibaatada Soomaalida heesa ku haysato ayaan ku gudi jirnaa TV badan ayaa markaas halka ku sugan xaflad waxay ka dhacaysaa magaalada Darmstadt ee dalka Jarmalka maanta dhan wadada ay dhageysanaysiin haatan waxa uu yeeray abwaan kamid ah abwaaniinta Darmstadt oo markaas dad badan ay wada garanayaan oo aan filayo in aad haddii aragtidiisa aad aragtaan inaad saxabka markaasi kala baqiini doonin waxaan jeclahay inaad soo dhaweysaan ilka case ayaan jeclahay inaad soo dhaweysaan si markaasi gacmo furan waa abwaan ilka case oo si weyn looga bartay abwaannimadiisa iyo xigmadaha uu soo gudbiyo bismillah أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان والد السلامي ومعالجة قرة البلان ما تكاسر. قربنا كده سنة كتير جارهم كوا كيسة. دمان ما تشرفت ما مويك ويلشة رجلا وياشة غاشة سنادينتا. دمان قلبي وين عروي عروي السلامي. ما كذبت. مثلا أنا كنت ضيع مع كهرباء وخلاص أسوي جديد معنا. أحيانا أو فكرة أنا أو طرق إلى دلوقتي فكرة أو تايوك يعني أنا ما أدري كده وجهه وحلا جرا ذاك جرمني فكرة أو تايوك يعني جرمني يا ما راح يا ده واحد هي وينك دي أعمل سوالف عن قسم هنا كمان سير عن سبب ايوه يا رب عن اكس بي اللي انا بقى يا رب قالوا لي اساس متى وما دي هاي يا هي هاي بيسلموا وما جاء إلهي يسير قرة يلي أبكى ووداده أبد من أيام درب أرجع مسؤولية أخذ كريم ما هي أوصل سبعة أرجعكم ما أقول رجعها كودني إذا جيس ما أنتو أكو قارب كريم صار إذا تقول يا رجعي أما كوني مسألة إنك أدم كني دولة ما أدينه إنك هذا كذي دولة ما ودينا وكذا هذا كذا يوصل كوان هذي أنا Somali إنك هذا كذي دولة ما ودينا وكذا هذا كذا يوصل كوان أصل فيه أستانتي أدو يغاني أدو نلقو برجلي سوينا يكبرني الصوت المنع سمينه بيبقى مورا أوته استيق آفا قرانيو الشباب كبير أرجعسون نوفي أصل فيها أستانتي أدو يغاني أبدا نلقو برجلي يا أصل فيها أستانتي أدو يغاني أبدا نلقو برجلي سوينا يكبرني صوت المنع سمينه بيبقى مورا أوته أرحلاوي أشيو عشان نيجي. هذا. إميكو دواف نهاية الأجنبي كلون هاي. إميكو دواف نهاية الأجنبي كلون هاي دريا كات وينها كات وده كان هو نور أما وما هو سوون عالمتا. دريا كات وينو دولها كهريان. إذا وينو دردي عن منين تكينو. إنك يسوي دينه. لكن إيه بدوها أن يقول وما وجدت في هو يعني بياشه Somali baan hay dad islaam baan hay sidii sunnadii rasuulka sidii islaamka saka duubitina adag gaal aan sujuuday Somali isku dhib waxa uu sababta tahay
nin Afrikaan ah ama Nigerian ah ama Ugandese ah ama Kenyan ah ama Sudan ah ayaa waddanka soo galay waxa uu sheegay Soomaali kulliga kadib dama la oga waxa wadada cadayna ama dhalasho oo markii ilaa dowladda xafiis soo baxay oo wataa jira Soomaali uu sheegay waa lagu qoran Soomaaliya waxa ka dhibaatada iyo caqabad maanta haysta inoo wada ee aan gaba aan ku daawanin halka inoo wada weeyaan marka waxay security ma adaga la sujuud Soomaali isku waxa soo socda marka adika ay weydiin hadii aan hay Soomaali waxay leedahay haddii aad ahaan lahayd dalkan haatan joogno iyo hay-adaha adduunkaba sodormadaxlayaashiyo ururadan faraha badan 300 kun oo urur ka dhisan waxaan nahay Soomaali hal afar ismaalna hal jasiirad nahay mani hal 300 kun oo urur ka dhisan waddankiina waa ka daran 300 kun iyo 300 sidoo ka dhisan haddii aad ahaan lahayd dalkan haatan joogniyo hay-adaha adduunkaba sodormadaxlayaashiyo ururadan faraha badan sidee lagu leeyahay يا جماعة كنتوا هاي إذا سير راجل أقول له تقوم على وذكر تفرض سبحان عيش الأمور جود لا هاي يشوف لا هاي وتكون كده كذا أنت لو ما كده ستحبوا يا كده إذا هذا وقت دينه كده 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 ما تقول كده سيدنا ما كنا نقول مصريا أوكي haddii aad lahayd dadka maanta dowladda hay'adaha adduunkaba sodormadaxlayaashiyo ururadan faraha badan sidee loo gelay xasada marka iyad ee amniyatada siriya ururka dhalinyarada ee maanta dooshan in la isku gaado ka dambeeyey ururkaas magaciisa Soomaaliya ku jirta maxaa alla haysta aad u weyn ma aha oo kala fiican waxa ay tiimi ururkan allaanke مسؤول كذا ورمادي أما تسويه هنا ما هذا يعلون لو دي بتراضي يعني ما هذا تنا زين هنا ما هذا يعلون لو دي بتراضي يعني ما هذا تنا عاد ميجان كلاته أيه هو كامل كمان نقرأ سوما وهذا هو عن ورمان ده هو جالي يا لكن تقول أنت الجنس هذا غلط كيف تشتري هذا ما تفهم دون هذا ما تبي تقول ده مثلا مثلا ما تأروح أطلعه يا أدم وقته أبغى أروح يا كروبها يا كازوبها كنروح كله هو نتهم صاروا ما بين ده صاروا ده واسع سنة بقول أبغى أفكر أنا سنة بقول أفكر بلاد ده سيرنا كأنكر بعدين حقين أقول له أما جواتنا يعتمد ما يستعينوا ده أنت هذه أروح بحق ما سني ده يا درب يا هذا التردد ما عنده وين تسهل لا تكي بيش ماي يا بالله خلاص بوت سبتة بوت سبتة بالله خلاص وعند سجين تفيو جدي كويل يلا نقول لما يستكين تويل سؤال ما قطعنا وكان مثلا هاي أقول سؤال شو يجاوب أنا مو هذا سومالي إن السومالي هنو هذا طبعا هذيك جوا سومالي وهذول هذا سومالي هذا سومالي هين وهذيك اللي تكلم وضع غلطان إن سومالي هنو أكبر سوالك الصوت أديو قطع بحيث مقعد ما قاوي بالأوفر يا جماعة وهو مقعد صوت أكبر أنا هذا كل شيء هيا يقول وهو الحديث يقول حمود جدي حلو أنا ليش هذا إلا كده هو إذا يبغى كده إني أنا هو وعمل ورد أو دراسة أو وده كذا كم تقول ما يلفت وعمل وعن حياه كياتي أما سودانيس يكون ديو سومالي أو سومالي أما إثيوبيا سبب تثبت أيام الحكومة قالوا إن سومالي كاي وقولوا نحن كذا الحكومة ديالنا سومالي كين وما كذا تبيو مريش كم كل تقول سومالي وهل ممكن يعني وده كذا وده كجوجا هل ممكن يعني دولة تغير سومالي سبب تثبت وحاول ما أحد سومالي ما هو ما على الله تاي ما قاعد لهو بحياة مثلا وعمل فيصل نوشك وعن نوشك كده سودان نوشك على صوماليا صومال في مثاوي سادت له كانوا من غير واحد سادت له كورة أجرا جابه مركز قاب كانوا به كانوا سادت حيتر نوتك سادت نوتك روي تاي كوب ما تروح جولا دول كيسن
قبل هيس الأمور كده فرها بدل ما كان حق الرهان أنت كلا ترمى كتير وين ما نسا وحنا قابل دور كتير من هيس كذا ما كي أنت صوتك بس وحاول بلا هتينا برالنا إن دبعتنا نور ثلا إنه نكمل رقابس هذا كلام كلامي مرة وبلا توفيق هذا مسلم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يوم أسيء أبوان كمرنا ساحكية كعاسة أو مركزي قبل هذا لون مرتلي هذا كان كسر جديد TV بدنا يا مركز هذا كان كسران TV السات TV ساحكية سكيرة ساحكية عبد الرشيد عنش أو هون كيف TV هذا كان مستحسن ما دام يفرسمنا كجرا لديكم هذا أكيد بس واحد وتاعنا عبد الكريم حسين وجاء مركزي هذا مستحسن وأنا كاتن وحويريا بدومي كحجينك مقالة هامبو أنا قاعد بدومي كحجينك مقالة وأنا وحويريا بدوميا مقالة فولدا أنا قاعد مستر ليدا واحد على ساعة في سرور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز محمد علي يا إلهي بسوتي إن بانت النقط صنع كل كنات فوق الفضاء. مركز محمد علي يا شمال كوميونيتي سيرفيس أو مالتي سؤال اسمي كل كنات فوق الفضاء. مع الإمام أحمد علي وحنا هاي بدون بحيان كتالينا شمال كوميونيتي هلاك رئيس أنا ودوني ماتي إن أنا هالكان كوشع إنه أما كشيء نوع عقلها تاجن لكن واحد إلهي كبري يا إن ماتي كل كان هالكان شو يبي ونقضوا كل كحل بدل لو جارو عقلها نور تاجن شمال كوميونتي سيرفيس أي شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ka codsanayaa dadka markaasi gudaha ku jira kuwa banaanka jooga in ay markaasi nidaamka nala ilaaliyaan asxaabta markaasi nala shaqeynaysa ee waqtiga bahuraysa ee wadeennada waxaan jeclaan lahaa inaad markaasi warkooda aad loo tixgelisaan idinkuna aad la tixgelisaan aad ayaad u mahadsantihiin mar kale ayaad leeyahay sida wacan aad ugu soo qayb gasheen xafladani waagul waxaynu ku guda jirnaa haddaynu ku guda jirnaa haatan waxaan u yeerayaa نور محمد السلام عليكم جماعتي أنا هذا بدل جدني وكل يوم لما كلمتنا مش سجلنا لما كلمتنا هوي المركز يسمح الناظر وبقول كفور أين الجوجيو ممثل يعني بتكو أين حاجة كجر السومالي كجر وعارك بقول بيبيتو يبغى السومالي فوراين ومش اللي يفرق مركز واحد جوجيو بسرعة السنة حريص على شيء سفر ممثل تذكر أكثر تجربة ما أعرف سبوق طبعا بس في كحياة أكثر تجربة أنا حنوصل ممثل مركز سنة حريصة هذا سنة حريصة بحاجة منها مركز سنة حريصة تسكر بحاجة السلام عليكم وولي waxaynu ku guda jirnaa hadda aynu ku guda jirnaa haatan waxaan u
gudoomiye ku-xigeenka magaalada Marburg saacadiisa weyn. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومحمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مرحبا وحياكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركز حتى وحرمها تعلمها يا إلهي وإذا إن أبوري الإسكواي كان نوع عافمات قبله مركز حتى ما دام أنا غير مسلم أو عمر عصايا ومعرفة إن كسر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت كذب markii waxa waaye aniga maahi gudoomiyaha jaaliyadda waxa saxo waxaana ay xubnaanta ka mid ah jaaliyadda laakiin hore u ahaa gudoomiyaha jaaliyadda Marburg inta kadib waxaan u mahadcelinayaa maaragtay walaalaha maanta noo sameeyay martiqaadka Somali Community Service IFAO aad baan ugu mahadcelinaynaa runtii haddaan maaragtay wax yar anaga iska barno anaga waxaan nahay faraan ka dhisan Marburg runtii maaragtay ka shaqeeyo adeega bulshada ku nool maaragtay kaleeska sigaarka kalees Marburg waxaan u taqaanaa isheeg faraan inaga la asaasay 2017 bishii koowaad runtii magaaladaas maaragtay inta muddo ah waxaan ka shaqeeynay isku maaragtay keenida bulshada Soomaaliyeed ee kaleeska isku dhaqan iyo sida ayaga loogu adeegi lahaa waxaa maaragtay aan magaaladaas ku leenahay xafiis oo annaga aan leenahay jaaliyadda ay leedahay oo runtii dhalinyarada lagu caawiyo maaragtay qofkii fiilku loo qoraayo kii maaragtay libislo loo sameynaayo cunugii waddankan ku dhasho meeshuu aayna islaamid boordaha maaragtay xafiiska laga too imaado runtii warqadaha maaragtay ankaraaga oo qaxootinimada markaas wixii isaga maaragtay loo sameeyo waxaan kaloo xiriir u leenahay maaragtay safaaradda oo warqadihii maaragtay bulshada madaba kale loo aadi lahaayeen safaaradda inaan laga fududeyno oo maaragtay lagu nifaaqan qofka soo gaadiisa adeegas maaragtay u raacdo saa maaragtay qofka maaragtay loo soo sameeyo waxyaalihii asaga ugu baahnaa kadib dadweyne lagu soo celiyo intaa kadib qofkii barnaamijka maanta isku yimid waa maaragtay barnaamij aad u qurux badan oo wanaagsan runtiina maaragtay u baahan in laga marmariyo laakiin sidee looga marmariyo waxa looga marmarinayaa bulsho kasto waxaa weeye adees mas'uuliyaddeeda waa qof qaadan oo banaan tahay waxay fududeysaa wax walbo oo bulshada u nooshahay maaragtay inaad ka rabto inaad ka heshay haddii laakiin baadalkood waxaa laga weriyey xaq in kala aseenta kaga fadhiyo sidee maaragtay u istaagaya ma istaagaya annaga waxaa weeye annaga isku fadhino maaragtay iskaga fadhino oo maaragtay waddan walbo ama meel walba aan joogno maaragtay isku dhegan oo farqaa ishaysano oo waxaa weeye maaragtay kaanada wanaagsan maaragtay ma dhehayso wanaagsan tahay hore u soco qofka meeshu ku fiican yahay wadamada hormar waxaa weeye meeshaasaa maaragtay lagu dhiirigeliyaa oo la dhahaa meeshaas ku fiican tahay oo maaragtay hore u soco annaga laakiin kaanada wanaagsan waxaan sameynaa bulshada baan ka hortaynaa waxaan aanaa hebel waa nin xun hebel nin wanaagsan ma aha waxaa weeye marka iska dhaafaan odayaasha dadka duniyada ah maaragtay loo dhacay oo meesha ixtiraami lahaa oo wanaajin lahaa oo wanaajin lahaa dumarka naga qaaliga sidoo kale waxaa weeye maaragtay mar waxaan noqonay maaragtay ayaga isku mashquulsan wadamadan ay joogno oo horumarsan dadka imaaday waxay kala laabtaan qof aqoon ka siyaadsaday qof xirfad ka siyaadsaday qofku maaragtay isha ka shaqaystay oo dhaqaalo waddanka kuu laabtay annaga waxaa weeye kaanadina waa joognay oo hadda wax wanaag iyo sharaf maaragtay ku hormaraha meeshaan hadda aan joognana maaragtay waxaan kusii soconaa maaragtay isha qashin qubka oo ah macnaheedu ay tahay haddaan anaga iswadaaginin oo sharfin oo maaragtay isha aan anaga isku tanaasulin dadka anu noqon waxay noo aqoonsanayaan bulsho qashintay sida loo tafuulay haddii aan isku duubnaano iswadaagino sharafno waxaa weeye maaragtay isha anaga dadka wada sharfayo waxaa loo baahay qof waxaa arkaysa dadka wanaagga faraayo asagii wanaagga aan sameynay ilaahay noo sheegay wuxuu yidhi ta'muruuna annaasa bilbir watansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaab afalaa tacqiluun waxaa weeye naftiina wanaag faraysiin dadka maa wanaag faraysiin idinkana tiin waa ka iloobaysa ninka weliba kitaabka akrinaayo inaan waxba garanay dadka maanta soomaalida intanada badan wanaag
الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون اله اليها وأن تذكر اني ولاده مناطق الاسعار طبعا هذا كثير سوماليين ولكن في كل مسكين مع الفيش ما هي وجميع في كل مسكين يقول هنا مع التقارير يغفر عن المطر شيء ممكن طبيعا الدنياشة وربنا يسوع صارم والله ما نبغى نعيش برضه إن شاء الله وهنجيب لنا الدنيا شوي نويرة أنا جعلنا هنا مرتفعات الدنيا وأنا شغال باستراي أنا أدار برضه تصور حياة gudoomiyaha magaalada Hanoi ayaa hadda isaguna isu soo taagay maanta oo aynu ku ballan qaadnay ilaa iyo bilow ilaa dhammaad inta ay ka dhamaanay shirkeenan idin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير من صلى وصام وقام وتلا القرآن بعد السلام الله سبحانه وتعالى أي مهضة مسلماتي طلبات وحنقول السلام يا سلام عن الجنة والله سبحانه وتعالى وقرأت شكوه من تحيته يوم يلقونه السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز بعض عن جعلها هنا الأمة العلمية تذكر أبوي كل كان قيمة خياه بدن سيد النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمن لم يشكر الناس لم يشكر الله تذكرنا أن تذكرها العلمين الله سبحانه وتعالى نقول هذه waxaan markaa dabcan intaan jarmalka joogo oo muddo kooban ah kulan intaan habigii kama qaybgalay waa farxad ay tahay in intaan oo Soomaali ah oo walaala ah oo isku mid ah oo isku jinsiyad ah oo isku hal hadalna ka wada dhexeeya oo ummada Soomaaliya ka wada hadla inay wada kulmaan kana tashanaya ayahooda iyo masiirkooda iyo dalahooda gaarka waxaan ka socdaa dabcan xubin ka mid ah farmaayn ama ururka isku tagga Hanoi oo 5 May oo goor Ramadaanka ka hor ah laga dhisay magaalada Hanoi iyo Minsk hadda midkan dabcan in badan waa la hadlay oo waxaan u malaynayaa wax yar uu binaadam baa ku dari karaa mooyaane inta ugu muhiimsanayd waa laga hadlay waxaa laga yahay keliya inaan ka hadlo xoojinta midnimada xoojinta midnimada oo Allah subxaanahu wa tacaala markaas quraan akhriino oo markii ay mana sheeganayeen awsiya khasraj oo markii tabanay Allah subxaanahu wa tacaala jidka ku walaaleeyey oo magaca qaatay ansaar markii hore waxay ahayd isdilo isgumaado iscunay ahaayeen laakiin markii daaci loo diray Cabdullah ibn Mas'uud wada taqaanaa كتب لي طاعة بدر علينا النبي عليه الصلاة والسلام كسر وين مركب النبي عليه الصلاة والسلام مرع أي قاتل وروحها مرع أنصار أوصي خسر القرآن بجميع هنا لكن أنصار قرآن ومرسل مهاجر وقرآن ولذلك مركب واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مركب إنك ربتنا تفرق لإنك ربتنا واحد لكن إن لو ضمن أسناءه والكل تصالحا dadka qaar ayaa waxay sheegaan al-khilaaf rahma khilaafka waa rahmad xadiisna maaha meel laga soo wariyayna ma aqaano waa been bal khilaafku waa cadaab maanta adiga iyo qofka xaaskaaga aabugii kuwa nool haddii aad ku xidhis iskhilaaftaan habeenkaas cadaab waa ku noolaanaysaa marka khilaafka waa cadaab qofka
maamulka hayane meel walbaba ha joogo waxaa la yidhaahdaa laguma maamuusine waa kalif iyo culays loo dhibay waayo kalif iyo culays loo dhibay waayo eba waa loogu duceeyaa xilka waa culays ma aha maamuus iyo sharaf maaha taasi waa taas annagina haddaan midoobo wax badan waa samayn karnaa dembi walbana waa qori karnaa waa haddii la midoobo laakiin ويجي عمر رضي الله عنه وقال الله على سوق الافاق ما كان وحي نجد ما اسرار روحي ان كذا سلوكي رباطنا على ذلك كذا ما طولنا ذلك كذا كل دول اراد ما بضطي واسمع مال او السوقي مال ولا عمر يريد تراويح ده والسنه تراويح السنه ما لانه تخطي قدام او صدق سنه يسدح السنه سنه يسدح برود كذا والسنه يريد مساجد ولا حاجه لأن حاجة الوحدة هي الواجبة من لماذا هو واجب أما التراويح والسنة هل مذكورة عينها ما كده بكوي توم على جنب كوي توم صدق الوجود كده مركز إخواني في الله وكان حجينا هنا من لماذا هي السكولات إنك بردمي الله نوصل عليه هو يعلن أنا هو إيطاليا الجوي هي سفارة إيطاليا وحي فوصل إن كفر الصومالية إن باسبور عطيه الإيمان واحد جديد مركز دولة الإسكندرية in ay ayagana Soomaalnimo sheegteen oo dukumeentiyada ay ku qaateen ama permisa sojourna wax loo yaqaan kadib markii baasaboor la sheegay baasaboor marka la sheegay way cabsaday dukumeentiyada u dhacay meel ay ku doontaan way waayeen markii dambe dadka qaar bay weydiiyeen waxay leedahay soo saari karna waa hoos safaadeed waxa 4,000 ilaa 5,000 oo euro ay bixiyeen kadibna permisa sojourna waa loo soo saaray macnaheedu waxay tahay annagu waxaan nahay muwaadiniin oo Soomaali ku aftirsada dalka Soomaali laakiin wadaniyadka naga maqan 13 SYL tiraya ay ahaayeen teknolojiyada dadka hadda majmacaysanin aqoon sare aysanin laakiin dadban bay horayeen annagu waxaan u baahannahay marka inaan noqono dad wadaniyiin ah oo aan ku ekaan keliya muwaadiniin aan noqono dad tusaale wanaagsan inaan noqono aan noqonin tusaale xun aniga waxaa iigu dareen مرة صوصة للسلطات هايرة الكودة الموقعة اللي هيكا غارين دويتي مقالنا حتى عنكم انتقالنا هدامشتات اي على جسو الدينة أكبر اسبوع مكان سوغاية مدحة وقصة مهية في هوالي لقاء بشيء وصول دينة تاني موارك لكن تاني موارك وحية صومالي كان هي ولا خوصي كريا هيك البروبلم دينة انت كلوا عادي انت سيئة وكوي لما تقول يكوي توقع كريا الثورات يكتل عليك ولا خوصية لكن أنا العالم كنت فيه قبل كبنات اللي صمت محكمة قبل كبنات وزارة العلم بدها صوت تصديق السيء دركيلي يعني يكون كصوب حلي دكتور دركيلي وأنا بجانا هاي لعبة كصوب حلي وبدأت وأنت الجمل اللي احنا نرى كنت بوحان أرضي المكانات هاوسي سيدا اللي يقول بدل شطايا عين عن شطايا ثلاثة عمره خلال دام معروف يحاسب عليها هي قلت له حب ومخوات كرا ما دام إذن كبل لدين أخوصي لما صدر يكون سوكوبتي يعني وحان سوكاي لو بلد جوابتنا لما صدر يكون سوكوبتي محان سمي أمرك وحان سمي ما كان لكن ولا لا هنو دعين أولا دلتنا ينوها كتشوي لأن قفر كل وحوية يمشوا فيه باب غير كتشوي لو حكمتي انت هداس كيس الشيء أبو قالت تصالحان تلاشد أو حتى انت وقف سيهدان خاصة وعن قررنا بقى كذا تقوله يعني كفعل معنا تستويلوا على قحوتي إنه تاهد شوقي كنت حق أبويا شيء عن قاطه باسبور إسلاس بيوسي وين أقول على الصومالي بدل وحا الشرف يا مغنالة يا ماموس يا احترام يا قدرين أقول لنا هاي إن درشت إني صوماليو عن وضعنا ونقولنا احترامه الشيخ محمد رسالة الله سيدي ومنا نشوقي على الجنة مريكا أرسل إلى بار كيزا لو كوشتي إني باسبور عقامي بيوتي وحتى الصومالي تطبق على أي محالة قعدوا وقافي أجانب تكال أي وطن فهذا التوفيق الله علينا وفجور أنا واسك هذا البلد أما كان منا سويس كاوستات الواروش إلي جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم السلام عليكم هذا يوم أسيها وحن فيها يا مانتي وحن لها يمين مهيب سمعان كان الصومالي وإيمان تسوى الدعاء إيمان تعلمه ذا يوصل في سنة وكاتن وحويريا محمد عبد الرحمن علي بدنيا جالية هيدا وعندنا مركز سعد في سلوكها وجود الإنسان.
gudoomiye maxamed cabdiraxmaan oo si weyn looga yaqaan dalka Jarmalka oo isaguna hadda loogu yeeray inuu kelmadiisa dhiibto. waxaan ka madahay Soomaalidii xilligii hore dalkan Jarmalka soo gashay waxaan dalkan Jarmalka joogay iyagoo Soomaalida halkan ku nool tiradoodu ay tahay inqof maanta statistigeeda u dambeysay waxaan filayaa inay Soomaalida 50,000 oo qof ay kor u dhaaftay xaqiiqdii arrin farxad leh وسألك كلمة كاتكة تنسيب بقاء إن صومالي إذا وقمت كل قصة عن اللحين أنا أود ودي أن أكتحي ماشي أكون كقفة وأنا محسن طريقة gabadhan ugu soo horeysa waa Froyunga oo mar labaad aan tusayno shiina culay isagana waa taqaanaan oo nin aad aan uga dhigay Facebook وما عن هو ما تبشر وعسلها هاي قاركون لا أيام السكة سواء هام هذا هو البوفار ولا نقصنا ولا نقصنا ما دام ضلكم هاي ضلكم يعني هاي كوميونتي ما دام يعني هاي ضل الشعب الدولة الله هاي وحال سبقنا وحال لو كنا نقول موسى والوقت عام وعسلها هاي بدونكاس وهو أنه مسؤول كان لأن دول اليوم وحكة هذه أن الجوتونك وحكة على من يقول دونه شعب لا يرى هو كان لا في الكعة أما ولا متكع ما كان ترى تروح إلى هذا يدرس وان حاول فصل باوس كير أما خوف وين يقول يسوق تسعة هذه أنا أقول يا حبيبي خوف كلام كشفت وحر بوليس يدرس وان هاوس أوف كارما هاوس أوف كارما سوماليدا يوم بعيد هاي تهاي إلى المجمع الفشل والمدولة وحيالها يبطل بسؤال المشاهد وكيف ما نصير سيقول دول الهاي والمهتي الهاي والمحبة قبل الهاي عن كوات الشباب وأنا يومات مسؤولية دولة المعاملة وهذا هاي الباب حقيقة هو كبلا إلى دولة كوسيدا وسوماليا من عام السبع وهكذا الله عيد سنة فرح ودولة سوماليا كشف الإسلام waxaan la shaqeeyaa dowladda Jarmalka khaasatan hay'adda arrimaha qaxootiga ama BAF dhibaatooyin badan baa Soomaalida sababay maanta in loo diido shaqada ama lagu istaambeeyo maaragtay eeganaanga waxaa ka mid ah Soomaalida oo uu ka lumay nidaamkiisa qofka Soomaaliga marka uu warqad soo samayso uu la imo warqad sharci ah kabuutsoo ku yahay noqoto وهذا هو كل هذا وعليا وقف الصومال إنه بقارها الله ودولة الصومال الله علينا ولا هذا وغضب الكذب وأصبح هنا كل قول الصومالي وقف المرء وقول السنة وقواتي سبيل الإنسان شويتي صومالية وقت بعطينا وقت مكان قال الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ودولة هود جبل هود الكين وعن السنة ولا تنزل xilligii aan ku cusbaa qofka secondariga Soomaaliya ka baxa jaamacadda Jarmalka way ku dhigtay midkii wax shuruuda hore oo ugu dhigtay oo aan ka ahayn wada ka shahaado secondariga Soomaaliya ku soo baxay waxaa dhacday dad Soomaaliya in dalka Jarmalka yimaadaan inay shahaado hindiya ka soo gateen ay yimaadeen jaamacadda Jarmalka markii uu yiri ka shaqeeyo jabra ka shaqeeyo ay garan waayeen marka inaga wafdiga bulshada ay isbacay gelino dhibaatooyinka iyo khaladaadkeena inaan dowladda Jarmalka kaliya ka shaqeysaa waxa kale oo leeyahay daran inuu isuufu kow nimada kamida
haddaynaan midnimo yeelan ila gaari si looga taas waxaynu qoraynaa dadku isaga oo meelaysta maalin walba cawla oo halkaan ka jira aad iyo aad mar kale waxaan u celinaynaa ciidamadii kulanka qiimaha badan soo abaabushay ilaahay ajar iyo xasanaadka ka siiyo waalimeydna qalbiga ruuxa waxaa sii wada mariyo dad sharaftii iyo qiimiga wadiisa isagana allaha ka dhigo way mahadsantihi weli waxaynu ku guda jirnaa hadiyadda markaasi looga hadlayay dhibaatooyinkaasi xal lagu helaa dhibaatooyinka soomaalida ku haysato gobolka heesan haatan waxaan u yeerayaa waxaan filayaa in aad khudbado badan dhegaysateen waxaad goor dhaweyd aad iga maqlayseen in aad riwaayad idin badan qaadayay riwaayadii inta nasiib ku heshay ayaa daawan doonto haatan ay soo geli doonaan sacabka intay kasoo galayaan ilaa ay soo istaageen markaa kasoo istaageen ayaa dhigin barnaamijka ayaan ku guda jirnaa waxaan jeclahay inaad hadda nala daawataan dadyowga khadka Facebook Cawtaanka News daawanaya bal inaad nala daawataan oo nagala bogataan riwaayad gaaban oo laga soo sameeyey teemaha hadda maanta laga hadlayo ama dhibaatooyinka dadka gobolka heesan Soomaalida heesan haysta waaga riwaayadii goordhow ay markaasi soo gelaysaa waxaan jeclahay in markaasi khudbadin aan ka hormarsiiyo waxaan filayaa qofka aan idiin soo gelin doono inaad wada garanaysaa oo aad wada taqaaniin sacabkii soo dhaweyntan inaan naga badin waa saaxiibkayga qaaliga master shiina culay oo social media waxaa hadda la soo kiciyey Shiina Culay oo si weyn caan uga dhinaca baraha bulshada si weyn dadka ugu qosliya qubadiisa malay maqla nacala shaytaan ku haween salaam geedkan waxaan sheegaya tareen baa saarin waxa weeye kiibaaga ay kama rabo waa idaasay tangu way way salaamaya waxa weeye markii aan arkay hadda cabaar baan joogay sodon qof baa intii hadashay marka waxaan u qaatay dadkoo dhan inay hadlaya waxaa dhanaha loogu daro waxaa la jawaabay xorriyadda hadalka lama wadaageen caanaha la wadaagaa gowjeer waxaa isiri war haddii hadalkii lagu heshiin waayey oo ninba ninka kale ku qanci waayey haddii wareebel inoo hadlay intaasaynu ku dhan tahay dee waxaa isiri wax kale ururada sida loogu heshiiyaan waa adkaanaysaa halka waxaan arkay guddoomiyaal badan oo guddoomiye hebel laftiga jarmal baa keenay magaalada ay muxabbaan oo guddoomiye magaalada hebel dhahaan inta ay ku fataa waa iska jeclaa mar waa la yaab waxa ay guddoomiyaashu badana Soomaalida walaha jarmalka iyaga qabsaday sababta laguma daray guddoomiyaha Soomaalida ee halka waxa la guddoomiye magaalada hebel
marka waxaan isla magaalo walba malaha waa la doortay adaama bin cabdi warsaminka mareykanka joogo kale waa meesha ka soo baxay marka inama yaabayo sababtoo ah dee wadankii marka la joogana madaxweynayaasha waa badan yihiin marka halka in maaragtay gudoomiyaasha iska bataan waa wax fiican weeye wax badan waa ay ka faa'iiday nin dhalinyaro hadalkaa loo yidhi warqadda meherkaa lagu adkeeyey warana waa lagu adkeeyey manadho ay tilmaanto laakiin tana isaga noo ayaa wuxuu yidhi waxa istooyawan baa lagu cashuurayaa buu yidhi carruur badan waa joogtaa taladaa ku hayaa waxaa weeye hadda istooyawan haddii lagu cashuuro waa asagaa u shaqeeya dee iskana socaytaada guro maxaa istooyawan waxaan rabaa inaan halka idinkala hadlo midnimada horta waa la tuhmaayo hadda dadku inaan maaragtay halka ka hadlo meelaha Facebook iyo marka laga arko nin iska hadal badan baan ahay laakiin markaan hadlayo albaabkayga hoosta ka soo dhigta guri ammaanaan joogaa dhinacyada waa iska eegaa halka dad badanaa jooga marka hadasho dadka qaar baa hadalkaaga qabsanaya moogta komitiyaa loo soo diraya qaar ay soo wacaya marka halka wax kasta kalama hadli karo dee waxa cagada biyaa inay saarantaa laga yaabaa marka waxyaabo oo general ka hadlaya oo ugu horeyso midnimada hadda ogaado midnimadu waa wax fiican weeye wadankii waa lagu kala qaybsan yahay qabiilaha loo kala baxaa maamulaha loo kala baxaa laakiin halka marka la joogo Soomaali baa leeyahay gabadha cado hadda halkaa fadhida inaa xamanaya iyo dareemine dee Soomaali way garanaysaa laakiin reerka ay ninkaa garanayo iyadu ma garanayso marka in midnimada waxa weeye la ilaaliyo aad u fiican tahay idinku dee waa fiican tihiinoo halka qof Soomaali hadduu ku dhinto waxa weeye halka waxaa laga helayaa shuyuuq baa laga helayaa dad badan oo jikada laga helayaa tuulooyin baa joognaa waxa weeye haddii laba joogta xataa laga yaabo inaan faatixada si fiican loo qabsan karin waa faa'iidooyinkay leedahay marka la wada nool yahay in la iskhilaafo inagu bulsho bukursanayn baan nahay carab iyo labadiisa daan baa isku dhowo waa la isqaninaa inuu la iskhilaafo wax iska caadi weeye wadankii baa kala nimi laakiin in kala dalaali karo ha la dalaalo bahal waxaa jirta turb la yidhaahdo turbina oo ciyaarteen u malaynayo afaraani baa la afaraani odayaashaan umalayna garanaya afaraanida marka waa bahal xaasni baa lagu ciyaaraa qofka waxa lagu riyaa bahal raani la dhaho marka ragga ciyaara isma aasaan afaraani qof ciyaara isma aasaan marka bahashaan ciyaartan iska ilaaliyo sidii hadhow maaragtay idinu noqon kuwa aan saasayn waa idinku bogaadinayaa midnimada ha la ogaado Soomaalidu markay saa u badan tahay qofku markuu xanuunsado qof soo booqdo uu helayaa qofku markuu aroosanayo cid maaragtay u timaado uu helayaa marka xaalad ka soo noqoto cid qaaraan kala bixiso helayaa marka aroos jiro gabdho mashxaradaa la helayaa annagoo xagga aroosyadu waa badan yihiin laakiin haluulis bay u badan yihiin cid bay adaysay waxaa lama hayo daamishtaad Soomaalida intaa leeg baa ku nool isma lahayn hadda waxay u badan tahay inaan usoo guuro sababtoo dadkan YouTube ka raadinayo dadkan intaa YouTube iyo Facebook ka raadinayo hortooda ma ka sheekeynaya maqaaxyaha fariisanaya waxa YouTube ka inta waa la yaamaanta oday stress ka iska ilaalinaya baan ahay maaragtay waa journalka waxa karo laga caban jiray gabdho la'aan baa jirta laga cabanay gabdho qurux badan oo badan waa joogaan oo daragaalka waxa weeyo single kuma badna marka way salaamaya waa ku mahadsantihiin sida ay sheegteen hadalka ugu soo dhaweyseen ميكروفون حقلمي هي فيسبوك وحقل على حقي وتصل ان شاء الله ما ننسى حسوحها شينا علي قرا حديث كلي ددك aad ugu qosleen أنا يوم أسيء مصدر شينا علي أو وقتي نور إسلام العاد أنا ما أدري عن بدنا نسيب ويا شيء ودام اشتربت صوصا مركل ولو واحد كفوت جرنا بدأ يركض جرنا هذا واحد جعل هذا دكتور واحد جرا إنما رعيضه مركل يسوق البيان يروح يقول ليا إن مركز دكتور واحد ما يعلى يعني ليش يجي دونا وهذا اللي ما هو جبته أنا هذا روايته وكمان هاي على مسألة يا سارم كمان هاي ورواية إنما عادي أنا ولا أوضاع ولا أوضاع وأنا واحد جعل يجي المرعيضه واحد يجي دونا ليش maadaama telefishinada Soomaaliyeed ay duubayaan dadka magaalada Darmstadt iyo agagaarkeeda degan sidaan ugu ballan qaadnay Xawtaaka News toos ayaan ku soo tabin doonaa bilow ilaa dhamaad innaba ka caajismayno inaan si weyn ugu soo tabin Soomaali salaamankii dhamaantii magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan rawaayadda waxaan ku diri doonaa Master Maxamed
xaaskayga waa kala barasho wanaagsan أنا magacayga waxaa la dhahaa nimco waxaan ku matalayaa Mona magacayga waa Kamaal Jaamac Muuse waxaana ku matalayaa qofka xafiiska fadhiya magacayga waa Maxamed Cabdicasiis waxaan ku matalayaa baasaboorka liibiya magacaygu waa Cabdinaasir Xuseen Xasan hooyada waxaan ku matalayaa Warsame sidoo kale xaajiyada weyn iskii bataa jeclaada waaga gud waxaynu ku gudi jirnaa xafladaynu ku gudi jirnaa haatan waxa uu yeerayaa afwaan ka mid ah afwaaniinta Soomaaliyeed ee xafladda nagula sugan Cabdisalaam Maxamed Cismaan kulan ayaa jeclaa sacabkiisa dhaweyn taagna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعد وعبسان حيسمان عبسان كلام وحين يريدوا هاتما يريدوا أثميشار يفتهني أقوياني يمارك طمان والغدي هاي مرحبا بودي السلام يا ملايكتو هيدي السلامتو ما دابا نقدر يرى هاي وحن شعلا هاي نقلو دايبو هالقباي أو دير دينتا وحنا الدارين هاي waddankani ku sugan nahay mool maal iyo mootona lagalama laaban karo laakiin dhalinyaradu aqoonha kala laabato waxa la barto maaragtay nin walba jaaniskan layna siiyey waxaa ka faa'iidaysto aragta ku raagi maayo gabadha waxa la dhahaa dhiirigelin waxaan ku bilaamayaa sidaatan dhalintii dalkayga ee wanaag dhiirigelintiina dhab waxa u jeclaystaa inaad dhaafto qayrkaaye dartiinaan u dhirayaa murtida dhumucda sugaane inaad goolka dhalisaan rabaa sharafna dhaabtaaya adoo dhaqanka kaashanaya oo dhaqasho faanaya adoo dhalasho xiganaya oo garasho dheegaya dharkeennii hiddaha iyo adaan dhigin hanaankeenna adoo dheelitiran oo asluub diinta laga dheehdo adoo dheelitiran oo asluub diinta laga dheehdo dhulka iyo adduunyada adaan dheeri ku ahaanin dheelalo sidiisii adoon marinka dhaafdhaafin dhimashada adoo sugaya aan duni dhabcaaloobin dhafa labada daarood adoo dheeligoo diida dhowr midhood tusaalaha haddaan dhaabadda u saaro ninka dheema soofeeyey ee dhagaxa shiidaya diintaba dhammaanteed ninkii dhuuxay fahankeeda dhakhtarkii wadnaha qalay intuu dhiigga kala biiray iyo kuwii ku dhoofoo samada kala dhambaalayay dhaqaaq kaama weyniya guiyo 10 kun oo dhaabe sagaal weeye dhalashadu habeenku muusa dheerayne dhigaa weeye ruuxaa fakeray dhigaya taariikha cilmiguu ka dhaansaday kashaa dhaafsha qaybkiisa dhaxal looma siinina kartidu dhigasha weeyaan dhigiis buu ka saro maray ninkii dhidadka quulaaye dhab haddaan wax loo baran walla dheeli bay nahay jahligaa dhaliil mudan runtii dhib iyo ceebeena ruuxu u dhuntuu xaqeen dhamac ku hogaayo bibiiliya waxay siman yihiin dhuxulo noolnool cilmigaas dhayi karaa halkuu
dhaawaca u geysta dheeftiisa goobtaad heshaad dheeli tirantahay dhiraandhiriya tacabkii galaa dib u dhamaysaay riyadaad ku dhawasho markaad dhabula noolaato xalaal baa dhex joogtaa markaa dharagga jirtaa iyo dhito iyo waxaad duubataa guusha dharabkeeda dhinac kalena aan kaa tusee dheega gabaygayga qorraxdii dhacaysaba cusay baad ka dhigatayo bicir maalintay noqoto oo tala dhanaanaato dhan kastaad u qaata oo markaa dhiiqa buugoodo dhiicadu markay jiicdo aad garab dhan taalowdo dhadib iyo dhabood aadamaha saminku soo dhuubto dhagab iyo markay xaajadii dhabanahays gaadho dabanaday haddaadan lahayn dhicisa guushi waayaha ku dhaawaca mar qura haysu wada dhiibin dheeraynta orodka iyo haddaad dababacayn weyda dhutin iyo adoo dhuufin karaa dhicidda hawyeeni dhaayahaagu waa inay arkaan guusha dhalanaysa dhagahaagu waa inay maqlaan sama dhawaaqooda sahay waxaad ka dhigataa tacliin dhaanka imanaya waaga buluuxaynu ku guda jirnaa abdada ayaanu ku guda jirnaa riwaayadii ay idinka balan qaaday ayaa markaasi haatan soo geli doonta aniga lafsadeeda waxaan ahay daawada ayaan ahay sraweyni kama maqna oo ayadana waxay tahay majaajiliista soomaaliya aad arkidiiseen majaajiliista jarmalka waad arki doontiin maanta waa hagaag ee waxaan jeclahay shacabka inaad naga arkay riwaayada ayaa inoo bilaaban doonta aniga idinkaba daawada ayaan ka noqon doonaa shacabkani kama hakan doono wixii aad fahmi kartaan fahma wixii aad fahmi weysaan adiga weydiiya anaa idin duli doono waa hagaag daawasho ah Wir sind jetzt eine Auto, wenn jetzt jemand kommt. baabuurkii aan maskaxdayda iyo lacagtayda oo dhan ku shubay oo aniga laysankiisa soo qaaday haddana soo iibiyey farxad iga dheh horaa waxaa loo yidhi wixii juhdi badan iyo wakti badan aad geliso maalin unbaad guushooda gaaraysaa marka waan dadaalay baabuurkii waxaan geliyay juhdi badan 5 mar aan dhacay oo aan teoriyo ku dhacay 5 marna waxaan ku dhacay waditaankii 5 kun oo lacagna waa igu baxday laakiin hadday kala kacdimo baabuurka waa soo qaaday 8 kun waa ku soo bixiyey shirkada hadda isku bilaabaysa waa baashaan aan tahay تطوعات على القائمة وغير السعودي في رمضان التسعة والنصف سدد بغض البحرين وصدق اليوم نقول هذا سنة مركب عشان تضغط لنا سلامات دار مشتت أقول لك هذا ويكي تخيل وضيك تيجي أنا في المقال وعشان قوي حتى أسرع لكم عارف هذه
hadda isku soo qoraa dhacdhac waaye maasha tan kalaysa hay soo gashina waa bartay هذا ترى عرضكم هنا ولا لا زي ما شرحت معاك ما هو كده سوق على كل ليس كده سوق ما هو كله سوي أنا طبعا مجال كده باش أعرف مع منفعت مركا هاجي ده ما شيء يكلموا أنا ورادي وكذي حتى اليوم أنا هو تارجت معقول هذا في شو كذا هاي اللي بحب إنه شيء Heute kommt schon dein Auto anmelden und jetzt hat seinen Pass und alle Dokumente, was wichtig ist. Guten Tag. Guten Tag. Als erstes mal eine Frage. Haben Sie Ihren Führerschein da? Kann ich den auch mal sehen? Ja, das ist gut. Ja, was ist denn? Ja. Den Führerschein bestanden und jetzt, den Führerschein haben Sie bestanden und jetzt möchten Sie ein Auto? Ja, ich habe gekauft auch. Haben Sie schon gekauft? Ja. Haben Sie sich vorher informiert, was man da für Dokumente vorlegen muss, um ein Auto anzumelden? جاب البروفيسور لكن waxay ku dhacday markays diiwaangelin kartid waraaqo badan lagaga waraaqadahaas information badan mahaysa maxaa kamid waraaqada ay baaheen waraaqadaha lagaga baahan waxaa waaye waraaqda gaariga kusoo gadatay baasaboorka oo muhiim ah isagana iyo lafta papa kullu dooniga idin xumaanta wadada Okay. Mir das jetzt mal an, was Sie da im Ausweis stehen haben. Denn es gibt eine Einschränkung. Wenn in dem Ausweis drin steht, dass Ihr Geburtsdatum auf einigen Angaben beruht, dann ist es nicht möglich, dass Sie ein Auto angemeldet bekommen von der Meldestelle. Ich gucke jetzt mal. waxay ku leedahay waraaqada ay dhigtaa ama documentka ay dhigtaa dhibka jira adigoo Soomaali aad tahay aan ku jeeda marka waxaa kaaga qoran ay ku dhahday waxyaalo aan lagu diiwaangelin karin baabuurka soo gatay macnaha baabuurkayga adiga weligiiba wadada booliga ma ku wadi kartid baabuurkaada adiga hadaa iskareeya sabab maxay tahay sababta baabuurkayga weligiiba baabuurka waxaa u wadi karin walaal Soomaaliya ka imaaday Soomaaliyana wax dokumentkooda waxa ugu qoran ayniga angaabo sidaan lagu fahmay كلنا ساسي أيضا على وجودي دوتان وحبنا إسديجي أجريسيف كصومالي كلمة تعليم مالي وطن كواد الجرمن شرعي من الليل فما في الإنسان ولا ليه حتى الجبل يعني ما تقدر الجبل كان يفتكر الجبل بدوانا طبعا كويتنا يا ماروركا شابو هو بقى سيدات كل مبسوطين بيه بس كيف جابوا تتنيش على كيرسي حتى وحنا عمود يعني ما هو ما في واحد كل عقبة Soomaalida haysatay kamid tahay taas oo jilbiyaasha kala taysanay marka ayagana hadda wareysana kulli wicitaan gashay qori wiciisa wixii la soo dhaaf bal weydiiyo wuxuu waxaan jiraa ama aan ninkan waa aan gaar isku koolay bulshada Eigentlich ist es auch ein bisschen naiv von Ihnen gewesen. Wenn Sie ein Auto anmelden möchten, dann würde ich mich mal bei meinen Landsleuten erkundigen, ob da irgendwelche Probleme aufgetaucht sind. Jetzt haben Sie schon Geld ausgegeben und wir können dieses Auto wahrscheinlich nicht auf Ihren Namen anmelden. Wir können nochmal, ich kann nochmal bei meinem Chef nachfragen, telefonisch, ob wir eine Ausnahme machen können. Aus meiner Erfahrung geht es nicht. Das bedeutet, Sie haben jetzt ein Auto gekauft, aber Sie werden das nicht auf Ihren Namen anmelden können und damit fahren. هذا هو قربنا ما يقرأ هذا المقولة ومقعد أصله قارئ سوق التي ومقولة مقعد
waxay ku dhahdeen jeefada koleeta waca marka waxay dhahdaan arki doonaa aniga laakiin hadda experience-ka ugu leeyahay shaqadaan dadka ka shaqeynayay ma arkin ay dhahday weli hadda dadkaan intaan xallin karaan waayo waxaan kaa rabaa adiga laftigaa dadkii meeshaan sii joogayaa tahay fikirisi haddii aad waxaan mar hore ka shaqayn laheedeen annagu waxaan ugu dhicnay dadkii aad soo galayaan nahay marka fikirisi anaa meesha jooga baawara sidii qarshaan baxay jawaabtaan galay haddana baawarkaan lagu qoraay leeyahay adi fikirsi talisi markaa maxaa sameeyaa gaariga meesha dhigoo maa leedahay soomaalida badanaa waxay sameeyaan qof muddo intuu jooga oo baasaboorka jarmalka leh ama oo kuwa qaar kulleyba jarmalka maxaa waaye waa bundesland state u dirsantahay stateyaal kaleeta ku qorinay jirta ayniga angaabada ama krais kaleeta marka qofka ku qorin oo soomaaliya ayniga angaabada ugu qorinay suuraasa ku dhiila ama qof muddo joogay siduu magacaada kugu qor laakiin taasna waa adeeg aqalad kugu noqonaysaa marka qofka kaleeta ma garanaysa soomaalidana iska shaki badan yihiin intuu ma garanaysaa aqbali doona ma aqan laakiin ayadaa magacaysa jeefka ayadaa magacaysa telefoonka magacaysa markii wacdo ka bacda ayadaa loo sheegi karo Hallo, hier ist Frau Hühner. Ich habe mal wieder eine Frage bezüglich eines somalischen Mannes, der ein Auto anmelden möchte, der aber die eigenen Angaben im Pass stehen hat. Ist da was zu machen? Darf ich den mal zu ihm hochschicken, dass Sie nachgucken? Okay. Okay, weiter. Moment. Mein Chef hat jetzt gesagt, es gibt da keine Ausnahmen. Sie können dieses Auto nicht auf Ihren Namen anmelden. Es tut uns leid, aber Sie sind schon der so und so vielste in der somalischen Community, sollte sich das mal sollte das mal publik werden, damit das einfach hier aufhört mit den ständigen Fragen. Es geht nicht, ich kann das nicht machen, ich habe Order von oben, kann mich nicht helfen. Mir leid. waxay ku dhahday kuma qori kari gaarigaada magacaada jeefada koreetana waa wacay waxayna dhahday baasaboorka wax kala yeela oo ku qoran ayniga angaabada jineedana waxay tahay angaabada soomaalinimada lama aqoonsana haddaad jarman joogtid marka waxaa ku dhiiraa waraan noqo mar kaleeta ama islaanta kooda oo waayo talabta ciidamada sinaariyiina xogaa si qabta in lagu jibo malayna marka macsalaan saas bugaha dejiye caruurtayda keen hadday leeyihin kuma dhaqaana anu kumaanahay waa yaab waay waa ariga waa arrin lala yaaba warka soomaalida ninkii soo saaca markaas inta wax walba haqaaya waaya macsalaan riwaayadii ayaan dhaxbartay kaga jirnaa waxaan filayaa in aadan dhegaysanaynin riwaayadda anigu way igu socotaa laakiin idinka ma aqaano waxaan jeclahay inaad si degana u dhegaysano riwaayadda isla mar ahaanta ama buuqa mise waxay ka ahay weeyeen daawashadeen halkaa ay noogu sii socon doontaa waxaan jeclaadaha mar kale inaad sawaxanka iyo codka aad naga hegaysaan riwaayaddan aad kala daawataan السلام عليكم. وش منور الباسبور برنامج كان مصور. هذا واقع مصور. أنا الفيديو كان تري وقضية تري وسلام كده وأنت وسوق عليه. مركا واحد قال والله أنت كنت باسبور وين حريصنا بالقبل وأنا مصور إن شاء الله. كل إن شاء الله شهادة تكون ده ما يناي شهادة فوق أنا باسبور فوق أنا كله. هذا كنت وتلخيص برنامج كان إن شاء الله. أستاذ البلدان قال لنا هي أنت معنا باسبور كان قال لنا بس مصور ما wir sind jetzt Islande Border.